ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley ayaa kormeer ku tagay degmada Allaybada oo ka tirsan gobolka Gabiley. Kormeerkan ayaa la xiriiray qaabka ugu wanaagsan ee loo kulansiin karo haweenweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka Gabiley iyo sida ay isku baran karaan iyo waliba in la ogaado xaaladaha dhabta ee ka jira deegaanadaasi iyo sidii loo ogaan lahaa baahiyaha ka jira degmooyinka. ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley horkacayso gudoomiyaha ururkaasi naaw Haweye Cabdi Kaahin ayaa ugu horeyntii degmada Allaybada kulan isxogwareysiga kula qaadatay haweenka iyo ururada bulshada degmadaasi waxaana lagu naaqishay qaabka ugu fiican ee la isku baran karo loona wada shaqeyn karo iyadoo kulanka ay ka soo xaadireen gudoomiyaha degmada Allaybada taliyaha booliska mas'uuliyiinta ugu sarsareysa degmada Allaybada waxaana ugu horeyn kulanka daafurtay gudoomiyaha ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley Haweye Cabdi Kaahin oo ku dheeraatay ahmiyadda ay leedahay in la isbarto. waxa weeyaan anagu waxaan ka nimid gobolka Gabiley waxa weeyaan gobolkii baan ka nimid anagu Haweye ahaan waxa weeyaan rumaantii maanta waxaan u soo kicitimay sidii aan Allaybada oo kaliya ma degmooyinka iyo iskugu xidhi lahayn gobolka sidii dumarku isku xeel ogaan lahaayeen sidii la iskugu xidhmi lahaa sidii baahiyaha laftooda wax la iskaga tari lahaa ururadu markay Allaybada ku jiraan oo kale waxa weeyaan anaga dawrkan laakiin waxa jira waxyaabo badan oo aan idinka caawin karno haddaan maxay ahayd meel wax idinka doono haddaan waraaqaydin qaadno adigu caawimadu way badan tahay wixii aan idinka tari karnaa wixii taalka iyagana waan idinka tari marka waxaan halkan maanta haweenweynahan aan ugu nimid inaanu isbaranno inaanu isku xidhnaano annaga oo marka kicitinka iyagu maanta Allaybada noqday inaanu Allaybada gaadhno oo gobolkii iyo Allaybada isku soo xidhno aanu halkaana iyo salaan qaali aanu idinka sidno Aamina waris marwada madaxweynaha oo ah hooyada Soomaaliland ee haweenka hogaamisa ayadoo salaan qaali aanu idinka sidno Aamina Maxamed Jirde ayadoo halka salaan aan idinka wadno waxaan halkan dhamaantiin baleenahay horta salaanta naga gudooma halkan anaguna hadii aan ahay gudoomiyaha ururka naaw qaranka gobolka Gabiley waxaan ka salaamayaa dhammaan xukuumadda madaxweynuhu hogaamiye madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo oo hogaaminayo waxa weeyaan run ahaantii isbedel weyn oo aragnay codkii kulmiye la siiyayna laguma khasaarin run ahaantiina meel kasta oo Soomaaliland wax waa laga qabtay. sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sareysa degmada Allaybada ee ururka naaw oo madasha ka hadlay ayaa u mahadnaqay ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley ka soo kicitamay iyo waliba gudoomiyaha ururkaasi Haweye Cabdi Kaahin. gudoomiyaha ayaa salaamaya taliyaha booliska dumarka isku soo banaanbaxay munaasabada iyo waqtiga qaaliga fursadooda ay siiyeen ayaan ugu mahadnaqayaa waan ku mahadsanyahay. marwa Haweye Ibrahim iyo saada dumarka la socdo dhamaan waxay noo sidaan iyo muraadka ay noogu yimaadeen iyaga halka maabiirtooda uga filin doono hadii Alla idmo waxaan ku rajo weynahay inay ka yimaadeen gobolka Hargeysa hadii Alla idmo marka waxay nooga wadaan madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayana iyaga halka noogu tusaaleyn doono inuu tafsiri doono hadii Alla idmo marka hore waxaan salaamayaa aniga iloobay madaxweynaha xukuumadda dalka Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo ayaa salaamaya qofka waxaanu idin leenahay waxaad noo sidaan waa idinka sugaynaa marka labaadna waxaan leeyahay halka waxaan ka fidinayaa Allaybada waxa weeyaan waa maalintii koobaad ee xisbi kasta oo yimaada gobolka Gabiley iyo degmada Allaybada dad ka socda ay isku yimaadaan oo ururka haweenka ragga waanu aragnaa mar walba marti way noogu yimaadaan laakiin dumarku waa maalintii koobaad waa maalin qaran oo qaali ah oo xusuus noole mihii degmada Allaybada ee ka tirsanaa gobolka Gabiley waxay kugu salaamayaan salaan qaali ah oo aad u sharaf badan. ugu dambeyntii Xalimo Muuse Xasan oo iyadoo kamid ah xisbiga talada dalka iyo kulmiye ayaa tilmaantay waxqabadka xukuumadda talada haysa ee kulmiye ka hirgelisay gobolka Gabiley. waxay bedeshay Haweye Cabdi Kaahin oo haysatay muddo 2 bilood ah waxay naga soo dhex gashay tii oo socdaalku iska sii inta ka soo horeyn lahaa bishii Ramadaan aan cibaadeysanay imika waxa loo yidhi halkan in aan isku xidhno degmadii Allaybada iyo Gabiley sidii maanta ay wada xidhiidh lahaayeen loo sameyn lahaa ururkii inay wada shaqeyn fiican ay ka dhaxayso loona baahiyaha maanta halkan jirana la eego oo la isugu bayro dhinacii markaa wanaagsan ee la kala shaqeyn ee ah in maanta gobolkii Gabiley idinka idin maqnaa sida kale waxay soo salaamisay marwadii madaxweynaha oo iyadu markaa halkan tiri
dumarka waa in si gaar ah u soo eegtaan oo ay marada haweeye aad isugu xidho iyadaana haweeye idin faahfaahin doonta hadday si hoose noqoto iyo hadday si saraba noqoto. Si kastaba haatee kormeerkan ayaa daarnaa sidii loo ogaan lahaa baahiyaha ka jira deegaanadaasi iyada ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley oo toddobaadada soo socda isku dayi doono sidii u tagi lahaa degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley isla markaana uu la xiriiri lahaa haweenweynaha ku sugan degmooyinkaasi taasina ay suurto gelinayso in ururku wax weyn ka qabto dhammaan degmooyinka gobolka Gabiley. Waa Jaafar Cawl Hareeri shabakada wararka ee Gabiley News degmada Alay Baday.